subax wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad farxad iyo caafimaad ku toostay. saaka waxaad haysataa laba doorasho: inaad sii wadato hurdadaada iyo inaad ka kacdo hurdada oo aad u kacdo shaqadaada, jaamacaddaada, iskuulkaaga ama hawl kasta oo adiga kuu muhiim ah. haddii aad ku sii raaxaysanayso hurdada, iska bakhtii muuqaalkan oo iska sii wada hurdadaada, waayo waxaan muuqaalkan ugu talagalay halgamayaasha nololeed. haddii aad diyaar u tahay inaad qurxiso maalintaada, sii daawo muuqaalkan. istaag oo ka kac gogasha aad ku jiifto, waayo noloshu ma abaal mariso dadka hurdada ku raaga. noloshu waxay abaal marisaa kuwa u diyaarka ah inay beddelaan noloshooda. assalaamu calaykum, anigu waxaan ahay maxamed faysal cali. ugu horrayn, intaanan muuqaalkan bilaabin, fadlan sabskrayb saar kanaalkayga si aad ula socon karto muuqaallo kale oo xiiso badan insha allah. saaka waxaad haysataa wakhti aad ku beddeli karto noloshaada, waayo waxaad saaka ku toostay caafimaad buuxa. dadka badankiisu waxay subaxdooda ku bilaabaan iskubuuq iyo cagajiid. qayb ha ka noqon dadkaas, waayo waxay dadkaasi habeen kasta la soo hoydaan farxad la'aan iyo qoomamo aan dhammaad lahayn. been ha iskugu sheekayn. haddii aad saaka qaban kari weydo, ma qaban kartid berri, ma qaban doontid maalmo ama sannado kale. wakhtigu waa kan aad iminka haysato. waan ku dareemi karaa inay u muuqato adayg inaad toostaa. waan ogahay inay u muuqato mid aad u cabsi badan intaad dibadda ka joogto, laakiinse qaninimadu waa inaad keento farsamo iyo xal aad ku gaadhi karto nolol aad ku qanacsan tahay. maalin lagu bilaabo farxad, dhiiranaan iyo qorshe habaysani waa maalin aad uga qurux badan maalinta dadka kale. haddii ay shalay adkay, saaka way kuu wanaagsanaan doontaa insha allah. laakiinse waa keliya haddii aad ku bilowdo maanta weji furnaan, dadaal iyo daacadnimo xooggan. ma og tahay natiijada dadka kala saartaa inay tahay qorshaha aad dejisato subaxdaada ka hor shaqadaada? haddii aad diyaar u tahay inaad la toosto qorshe la'aan, waxaan kugula talinayaa inaad hurdadaada iska sii wadato, waayo waxaan ogahay inaanay maalin bilaa qorshe ahi natiijo wanaagsan ku soo gebgaboobin. dadku waxay u kala bixi doonaan laba kooxood: qaar la tooso qorshahaasna ku shaqeeya ilaa dhammaadka, iyo qaar ku bilaabi doono subaxdooda bilaa qorshe, kadibna sidii caadada u ahayd calaacal iyo cabasho ku soo gebagabayn doono maalintooda. kooxdan labaad waxay u badan tahay inaanay noloshoodu raadad wanaagsan ka tegin kadib geeridooda. haddii aad la kici weydo qorshe, dhiiranaan iyo dadaal xooggan, iska ilow inaad kor u qaaddo koobka nolosha. guuldarrada iyo caqabadaha adag ee noloshu midkoodna ma aha abaalmarinta saxda ah ee ay bixiso noloshu, laakiinse waa cashar ujeeddo weyni ka dambayso. casharradaasi keliya waxay ku barayaan inaad noqoto qof aad u xooggan misena farsamo ahaan u dhisan. noloshu dadka waxay u kala saartaa dad natiijo ka gaadha wax kasta oo ay gacanta u qaadaan, iyo qaar kale oo sabab u raadiya wax kasta oo ay awoodi waayaan. weligaa ma isweydiisay sababta ay u adag tahay inay dadkoo dhammi lacag yeeshaan? sababtu waa inay aad u adag tahay qofku markuu gaadho natiijada nolosha inuu ku fara adaygo abaalmarinta ay noloshu guddoonsiiso. waayo waxaa noloshiisa xusuus lama ilaawaan ah kaga tegaysaa dadaalkii, diidmooyinkii foosha xumaa, kumaadaysigii ay dadku ku maadaysanayeen, iyo shaqadii xoogga badnayd ee uu soo dhex jibaaxay. inaad guul darraysataa ceeb maaha, laakiinse waxaa ceeb aad u weyn ah inaad daawado nololeed ku qanacsanaato cimrigaaga dhammaantii. ma jirto aroor ka qurux badan inaad bilowdo adigoo dhoolla caddaynaya. bilow maanta maalmo badan oo qurxoon.